xisbi xaakimka talada haya ee kulmiye ayaa maanta ka jawaabay hadallo maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay wasiirkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi. Haddaba eedeymaha xisbiga kulmiye uu Maxamuud Xaashi u soo jeediyay waxaa ka jawaabay wasiirka qorsheynta qaranka Xasan Gaafadhi, waxaana ka mid ah hadaladiisii. marka hore qaybo badan buu ka hadlayay, intiisa badanina waxay ahayd ay iyo aflagaado madaxweynaha ku waajahan. waxba ka odhan maayo, waayo markoodii horeba wacayo cayda dee nin labaa leh, mana wanaagsana nin hogaamiye ah oo doonaya inuu hogaamiye noqdo afkiisa maaha inuu caytamo. markaa kama jawaabayo, mana difaacayo madaxweynaha, kama difaacayo. ninkii yidhi unbaa taa yidhi. laakiin waxaan keliya rabaa inaan xuso madaxweynuhu maxamuud goobo badan buu madaxweynaha kaga hadlay xilliyadii kambeynka. wixii uu ka yidhina waa duuban yihiin, waa la hayaa. intaasaayna kaga filan. madaxweynuhu waa kii uu maxamuud berigaa ka hadlayey, isma bedelin. haddeer dhan waa isagii. laakiin waxaan u malaynaya isbedelku inuu maxamuud ku yimiyo malaha wuxuu jeclaa inuu arko markuu muraayadda ka arki waayey, waa laga yaabaa inuu dabadeedna uu isagu isbedelay. waxaase wanaagsan inuu qofku hadduu qof weyna oo mas-uula oo weliba xilal waaweyn hunguri ka hayo, waxyaabaha qaarkood waa laga wanaagsan yahay. taa ku dheeraan maayo. arrinka xisbigu xeer buu leeyahay, waxaana lagu dhaqmaa waa xeerkiisa. haddii muran yimaado oo la isqabto oo xaajo la isku qabto, waxaa marjaca oo loo noqdaa waa xeerka. intaan ka ogahay xeerka xisbigu meel ay kaga taallo inuu madaxweynuhu marka uu ku guuleysto doorashada wareejiyo ma ogi. hadday taasu jirtona maxamuud de waa qodobo ilan xeerku yahay, isagaa looga baahan yahy inuu yahay qodobka caynka iyo caynkaasa baa tilmaamaya inuu madaxweynuhu wareejiyo. haddii bise ay tahay madaxweynuhu inuu wareejiyo, waa kuwa ka lagu wareejinaya. iyada lafteedu waa su-aal. yaa boqran? ma cid baa iska dooran? miyaa loo tartamayaa? waa iyo cidda lagu wareejinaya. arrinkaasuna waxaan isleeyahay caddaymihiisa ayuu u baahan yahay. haddii heshiis dhacay oo madaxweynaha idinkula heshiisay in xisbiga la wareejiyo, goobtii uu ka dhacay iyo heshiisku cidda uu ku wareejinayey, cidda uu ka maqan yahay uu baadida ka ahaa 3 sannadood, iyada lafteedu waxay u baahan tahay inuu maxamuud caddeeyo. haddii dee loo ballan qaaday, annagu maanaan ogeyn cid gaar ahoo loo ballan qaaday. haddii loo ballan qaaday oo cid u ballan qaaday, dee inuu si fiican u muujiyo oo yidhaahdo halkaa iyo halkaasay haydo, ballantaana waan qabay, ciddaasuna way ballan qaaday. maxamuud dee taasaa looga baahan yahay. laakiin waxaan ogahay xisbigu waa dimuqraadi, ummad badanina shacbiyad ballaadhanna wuu leeyahay oo 6 gobol ee waddanka ah. xubintaa uu ka hadlayana waa loo tartamaa. qofkii ay doortaan golayaasha u degsan xisbiga ayuun baana guddoomiyaha noqda. wax intaa dhaafsiisan annagu ma ogin. damaca maxamuud ku jiraana rag badan oo ku jiraabaa jira. waxaanay sugayaan midhuhu marka ay qaradha yihiin ee aanay bislayn. haddaad isku qaaddo afkana qadhaadh bay kuu dilaan, calooshana xanuun bay kuugu dilaan. madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siinaanyo 2 goor ayuu isagoo guddoomiyaha doorasho ku galay. madaxweyne cidina kulama loolamin. madaxweyne muuse biixi cabdina sharci iyo xeer u diidayaa ma jiro inuu 2 jeer isagoo guddoomiyaah inuu ku galo doorasho. arrinkaasuna waa arrin dastuuriya oo dastuurka xisbiga ku yaala oo ku xardhan. ninkii wax ka qabaana dee dastuurka qodobun baa lagu jabiyaa, qodobka jabinaya ha keeno.